بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. waxaan rabaa maanta inaan yara bilaabo chapter 5 aan bilaabeynaa inagoo dooneyna runtii inaan gabagabayno chapter 5. laakiin intaan chapter 5kii qaab qoristiisa iyo sida loo qoro iyo waxa theorygiisa iyo intaan u guda gelin, waxaan rabaa marka hore inaan faahfaahin guud aan kasoo bixino bal sida aan wax u wadnay si uu cashirkanu iskaga qabsado. waxaan isla wada ognahay inaan chapter 5 intaan bilaabin inaan soo wadnay daraasad dhammaystiran annagoo kasoo bilaabnay ciwaan sida loo doorto, sidoo kale soo fahmnay sida waxa loo yaqaano dimensionska loo soo fahmo. chapter 1 kadib soo bilaabnay, chapter 2 soo bilaabnay, chapter 1 kana aan ku guda jirnay 3 cashir aan kala qaadnay kadib chapter 2 aan soo qornay, chapter 3 aan soo qornay, chapter 5 aan soo qornay, maanta aan joogno chapter 5. waxaan rabaa markaa inaan isla eegno balsaan wax u wadnay iyo sidee wax u socday intuba. marka ugu horeyso waxaan wax kasoo qorno wax loo yaqaano ciwaan ahaa dulucdeena runtii waxay ahayd ama duluc ciwaanka aan ka qoraynay dulucda runtii waxaan sheegay inta badan waxaa la yidhahdaa waa topic ama ciwaan. wuxuu ahaa markaa wax loo yaqaano employee satisfaction and organizational productivity at Kai Company in Mogadishu, Soomaaliya. runtii waxaan sheegay marka ugu horeysay dulucdu 4 shay inay ka koobneed. anaga dulucda waxaa ka qoran wuxuu ahaa IV-ga oo ahaa employee satisfaction, productivity organizational productivity-gana wuxuu ahaa DV-gana oo ahaa waxa loo yaqaano shirkadda aan wax ka qorayna ama unit of analysis-keena wuxuu ahaa Kai Company. meesha ay ku taalna waxay ahayd Muqdisho, Soomaaliya bay ahayd. idan maadaama ciwaankaasi wax ka qorayna marka ciwaankan inta markaan soo qaadana waxaa jira wax loo yaqaano dimensionskeena wuxuu ahaa labay ahaayeen keliya. kan ugu hore wuxuu ahaa waxa loo yaqaano promotion iyo job security. idan ciwaankaas oo dhammaystiran aad u jeedid oo kan hadda video dhammaystiran ka sameynay, kana video dhammaystiran ku soo qaadanay, kadib waxaan soo galnay inaan chapter 1 qornay, ka soo gudubnay chapter 2 qornay, ka soo gudubnay chapter 3 qornay, ka soo gudubnay chapter 5 qornay, ka soo gudubnay maantana aan u joogno chapter 5. okay, sidoo kale markaan cashirka bilaabeynay waxaan ku wadnay wax loo yaqaano marka hore inaan theory isla eegno, theory markaasna kadibna aan geli jirnay wax loo yaqaano practicalka. intaas inta markaan ugu gudbo marka ciwaankeena maanta marka waxaan soo gabagabaynaynaa buugeena daraasadda. waxaan baranaynaa marka hore intaan u gelin marka sida loo qoro chapter 5ka. horta maxaa la yiraahdaa chapter 5? imisa loo qaybiyaa ama qaybihiisa kala duwan maxay yihiin? kadib baa waxaan gelinaa marka sida loo qora aan isla fiirino. marka ugu horeyso waxaan chapter 5 baan gelaynaa. chapter 5 kaas intaan gelin ka hor marka waxaan fiirinaynaa chapter 5 oo horta maxaa tahay magacaaga, 2 maxaa lagaaga hadlaa, 3 intee baad u qaybsantaa. kadib marka afraad waxaan geli doonaa maxay sida loo qoro chapter 5. waxaan rabaa marka insha Allah ilaahna ka rajeynaya inaad igu caajisi doonin. chapter 5 marka ugu horeyn intaan buugeena hagaha cilmi baaraha u laabanin horta aad baan idinkaga mahadcelinayaa maxaa yeelay buugga hagaha cilmi baaraha sidaad ula socotaan iyo sida aad usoo dalbanaysaan meel kasta aad joogtaan
iyo gobol walba aad joogtaan iyo yani wadamada dariska aad jirtiin intuba aad baan idinkaga mahadcelinayaa. intaas markaan ugu gudbay kadib waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale ardaydii soo weydiisatay chapter 3ga iyo chapter 4ka oo kale data analysis-ka ugu hadlayna oo kale. runtii waan idin sheegaana inta badan chapterada idiima soo diri karo PDF ahaan sababta maxaa yeelay waxaan diidayaa inaad adigu caajisan oo iska jiifto inaad chapter 5kayga ama chapter 3kayga sidiisa aad u adeegsato, taasna waxba kaagama soo kordhayaan. runtii waxaa fiican inaad is adkayso, adiga dadaalkaaga muujisid, markaad daashay kadib yani supervisorkaaga adigoo kaashanaya weliba inaad xooga saartid wax alla wax walbay noqdaan inaad gacantaada ku qortid. haddii chapter 3ga aad u baahan tahay ama chapterada kamid aad u baahan tahay isla shaashada wuu kuu saaran yahay, computerka kugu jira, yani waxaan ula jeedaa YouTube-ka kugu jira, yani laakiin asigoo xooga haddaan kusoo gaarsiiyo waa copy and paste aad u adeegsanaysaa. marka waa idinka raaligelin runtii, yani wax igama aha xasidnimo, igama aha yani, laakiin waxay iga tahay inaad adigu dadaashid. fahantaa rajeynaya. idan marka maanta cashirkeena si toos ah u galayna. marka chapter 5 maxaa tahay marka si aan u ogaano waa inaan soo fiirinaa marka buuggeena hagaha cilmi baaraha. buuggeena hagaha cilmi baaraha chapter 5 markaad u baahan tahay marka waxaad ka tegaysaa page-ka 17aad ka tegaysaa 77. sidoo kale chapter isheeg waxa loo yaqaano buuggeena hagaha cilmi baaraha markaad joogtid inta badan wuxuu leeyahay buug la lamaanan oo yani arday ka tirsan isheeg jaamacadda Muqdisho iyo jaamacadda UNESCO ka baxay buuggiisa lagu lamaanayay si aad uga eegto bal wixii saxan iyo wixii qaldan buuggaasi sambalka ah, proposalka ah. idan marka haddii marka chapter 5 aad soo furto oo kale hadeertaan marka inta joogtid oo kale halkan waxaad ka arkaysaa ka eeg bogga 114. bogga 114 markaad rabto inaad eegto marka halkaan inta kale markaad jagsiiso waa 124 markaad tagno halkan waxaa kugu qoran marka chapter 5 oo diyaarsan isla buuggaagii ah. waa page-ka 114 markaad joogtid buuggood diyaarsan baa halkan ku yaala. introduction-kii waxaa ku yaala sambala, major findings-kii oo sambala, wax walba sambala halkaasi ku yaala. marka inaad la socotaa rajeynaya. okay, maanta hadda halkan waxaan ka bilaabaynaa marka safarkeeni chapter 5ka. horta chapter 5 si aad u diyaariso wuxuu kaa rabaa kaliya muddo 3 saacadood ama 2 saacadood oo kaa rabaa oo haddaad fahamsan tahay. culays weyn ma asiga ugu yaraan waa 6 paragraph camal weeyaan. oo introduction haddii paragraph aad siiso, qaybta labaadna 3 paragraph siiso, qaybta labaad 1 paragraph siiso, qaybta ugu dambeysana waa 1 paragraph. waa waxaana dhammayn 6 paragraph weeyaan. paragraph walba magaciisana waan ogaan doonaa. horta chapter 5 magaciisa waxaa la yiraahdaa waa kan, waxaa la yiraahdaa major findings, conclusion iyo recommendation. chapter 5 wuxuu calaaqaad la leeyahay chapter 4kaaga. waayo chapter 4kaaga waxaad ku soo sheegtay resultigii natiijooyinka aad ka soo aragtay data analysis-kaaga. sidoo kale chapter 4kaagana wuxuu calaaqaad la leeyahay chapter 3gaaga oo markaad joogto 3 sheeg 7 meelaha sita camal waxaa jirta data analysis-kaaga inaad soo tilmaamnid ma questionnaire ba. markaan chapter 4 soo qaadanaynay inaan ku laabano waad ogeyd chapter 3. maanta marka chapter 5 si aan u qorno waxaan in badan u baahan doonaa marka chapter 4kaaga. okay, waxaa lagaga baahan yahay marka major findings. daraasadan aad qortay, anaga daraasadeena waxay ahayd wax loo yaqaano maxay waxay ahayd daraasadan aan soo qaadanay findingska aan ka soo helnay. waxaan baaraynay employee satisfaction-ka. horta waxaa noo imaaday ugu horeyn shirkaddan loo yaqaano Kain Company iyadoo ka dacwoonayso wax loo yaqaano productivity inuu hoos u hooseeyay. productivity-geeda maadaama uu hooseeyayna anaga waxaan ogaanay in employee-ga dhankiisa laga haysto. saas awgeed baa daraasad waxaan ku sameynaynaa marka fiiri markii qof baa ku imaado oo kale wuxuu ku yiri gaarigana iga halaysan. gaariga iga halaysan markuu ku yiraahdo kadib maxaa sameynaydaa adigana? haddaad makaanikiisa tahay waxaa sameynaysaa gaarigana gashid ogaatid meesha laga haysto. ma dhanka salbatooyda laga haystaa, ma dhanka korontada laga haystaa, oo dabka laga haystaa, ma dhanka taayarada lugaha laga haystaa. yacni shirkaduhuna waa sidoo kale. maanta annaga ka Soomaali ahaan meel walba aan joogno waxaan ka hadlayaa wadanka gudihiisa ka hadlayaa. markii aad joogto wadanka gudihiisa waxaa lagaga baahnaa si aad buug u qorto waa inay jirtaa xarun aad buug u qoraysid. tusaale ahaan maqaayad,
tusaale ahaan hospital, shirkad, dugsi, iskuul, meesha doontaa noqdo dukaan. Yani waxaa loo baahnaa ardayga waa inuu qoraa real proposal dhaba inuu qoraa. laakiin anaga hadda waxaa nala dhiibaa keliya proposal iska yara niyeysa ah, yani iska yara bohbohleen ah. sidaa awgeed marka shirkadan Kain Company-ga marka waxaan u baaraynay shaqaalaheeda inay hanka u dhisto ee dhiirigeliso saameynta uu ku leeyahay ama doorka uu ku leeyahay employee productivity-ga. marka si productivity-gana uu sare ugu kaco marka waa in shaqaalaha la dhiirigeliyaa. taas cududda waxay marka ama culeyska aan saarayna waxay daraasadeena marka. okay, chapter 5ka markaad joogtid marka waxaa lagaaga baahan yahay major findings-kaaga. maxaad ka soo heshay marka? waxaad baaraysa shaqaalaha haddii la qanciyo in productivity-ga ma sare u kacay ma hoos buu u dhacay, maxaa soo heshay inay la fahantaan rajeynaya. hadda su-aal haddaan ku weydiiyo oo ku dhaho sagaarka iyo bulshadu ma saameyn bay isku leeyihiin mise door xun bay isku leeyihiin mise yani door fiican buu ku leeyahay, isla markii waxaad iiga jawaabaysaa door xun bay isku leeyihiin, waayo qof walba uu ka dharagsan yahay. laakiin daraasooyinka qaar waxaa jira aadan hore ka sheegi karin. fahmaysaa waan malaynayaa. tusaale ahaan oo kale qof aan weligii webi tegin oo kale haddii la yidhaahdo webiga malaayga ku jiro dhadhankiisu waa noocee, yani hore islam hore kama jawaabi karo. idan saas awgeed marka daraasadda net employee satisfaction-ka haddii shaqaalaha hankooda la dhiso oo la dhiirigeliyo oo mushaar fiican la siiyo oo goob fiican la tegiyo oo si wanaagsan loola dhaqmo, waxaan aaminsanahay in productivity-ga sare uu kacayo. haddii kan hoos u dhacana sidaan kale ay dhacaysa, yani isweydaar haddii noqotana. okay, daraasadda maadaama aad soo samaysay chapter 1 oo 2 iyo 3 iyo 4 aad soo samaysay, maxaa soo heshay halkan ku sheegaysaa. qaybta labaad waxaa weeyaan conclusion, inaad soo gabagabaysid adigoo sheegaya IV-gaaga, DV-gaaga, unit of analyse-kaaga, population-kaaga, major findings-kaaga, yani jabtarkaaga 5 jabtar baa halkaas meel kusoo koobaysaa. iyo tan ugu dambeysa waxay tahay recommendation. recommendationkuna waxaa weeyaa marka waa tala jeedin weeyaan. qofka markuu ardaygan daraasadda soo sameeyo ama waxan uu soo sameeyo, waxaa jira waxyaabo badan oo experience oo xambaarsanaya jira, ama waxyaabo uu asiga yani natiijo ahaan uu arkayo laakiin buugga uusan ku qori karin. tusaale ahaan fiiri, buuggaaga wuxuu ku ogyahay conclusionka ku ogyahay. conclusionka wixii ka dambeeyo adiga iskale. marka waxaa le researcherka iskale, wuxuu doono ku qoran karaa. haddaad doonto waxaa ku qoran kartaa recommendation, haddaad doonto waxaa ku qoran kartaa father of researchers, ku qoran kartaa waxyaabo dheeraada, waxaa ku qoran kartaa appendix-kaaga noocee doona ha noqdaan, reference-gii waxyaabahaasa ku qoraysaa. recommendationkani haddii aad doonto waad ka tegi kartaa, laakiin waxaa muhiimsan inaad qorto inta badan. waa fahmaysaa soo maaha? recommendation maxaa weeyaan marka? recommendationka waxaa weeyaan tusaale ahaan ka soo qaat hore waxaan usoo sheegay qofka markii uu wax baaro waxaa usoo kordhayo khibrado fara badan, wuxuu arkayaa waxyaabo horey uusan arki karin. waxaad ka soo qaadaa tusaale ahaan marka adigu hadda waxaad ka shaqeysaa hay-ad ama shirkada ka shaqeysaa, hay-ad samafal ayaad ka shaqeysaa. hay-addaasiti waxay ka shaqeysaa gobolada wadanka. marka adiga magaalaad joogtaa, ama muqdisho joog, ama hargeysa joog, ama jigjiga joog, ama kismaayo joog, magaalooyinka soomaalida weyn ee degto mid ka mid ah baad degan tahay. hay-addaasiti markaa isla magaaladaadii ka shaqeysaa. marka magaalada markay ka shaqeyso marka waxaa qasaba in tuulooyinka hoos yimaada magaalada inay shaqo u aado. hay-addaasiti marka waxay shaqadeeda ama ay quseysaa ama inay howl u qabato ay tahay caruurta oo anemiyada ku dhacdo, caruurta nafaqa darada ku dhacdo, caruurta cudurada jadeecada, malaariyada, yani waxyaabahaasiti ku dhacan bay shaqo ku leedahay. adiga marka waxaa tahay ay sheeg waxa loo yaqaano shaqaale ka tirsan. waxaa lagu yidhi bax magaaladaasiti tag, soo ogow xaaladda caruurtaasay ku nool yihiin. adigii shaqada lagu soo diray waxay ahayd caruurta bes. hay-adda aad ka shaqeysana waxay qaabilsan tahay caruurta oo keliya. inaan isla fahanaa u baahanahay markaan ku lalaabanayo. meeshii markaa imaaday waxaad diiwaan gashatay caruurtii, wixii malaariyada qabaa, wixii daaniimiyada qabaa, wixii nafaqa daro gooniya qabaa, wixii ii sheeg yani jadeeco qabaa, wixii cagaarsho, yani cuduradii aa ogaatay iyo saameyntooda si gargaaroo la yimaada yaa ugu bada meeshaneeti, waayo cudur walba saameyntiisa gooniya u leeyahay.
shan beri lagu qabtay shanta beri markii kuu dhamaatay baa intaa magaalada joogtay waxaad diyaarisay reportkaasiiti waxay kugu hadlaysaa shaqadaada iyo sida lagugu diray iyo wixii lagaa rabay laakiin waxaad aragtay shanta maalmood ee aan magaalada joogtay waxyaaba dheeriya maxaa ka mid a marka waxaad aragtay umuliso xumo magaalada ka jirta maalan yacni hooyada waxa umulisa magaalada maba joogtaba magaalo kale loo qaadaa ama magaalada ka imaadaa loo qaadaa hooyooyinka qaarkood dhaxay ku dhintaa iyagoo dhiigbax u dhimanaya qaarkood dhax bay ku dhalaan waa la iska soo celiyaa qaarkood inta baa waxaa dhalasho umulisa caadi yacni sheega umulisa dhaqameed baa umulisa adiga howsha lagu diray reportkan waxaa ku gudbi kartaa keliya caruurtaaneeti yaa jadeeco qaba yaa kan qaba laakiin waxaa jira wax loo yaqaano recommendation hay-adaadii baa waxaa u gudbinaysaa tala jeedin ah waxaa u wanaagsanaan lahayd ina meeshaan umulisana la keeno ina ila fahantaa umalaya marka waxaan ka hadlayaa wax loo yaqaano recommendation marka waxaa la yidhahdaa keliya waxyaabo hawsha lagu diray aan ahayn laakiin mudan tahay inaad soo gudbisid ina ila fahantaa rajeynaya marka recommendation bisaan ka hadlaya marka chapterkeena markaan kusoo laabano chapter 5 waxaa la yidhahdaa major findings conclusionka iyo recommendation chapter 5 oo maxaa taa marka waa kana chapter 5 waa qaybta shanaad ee buuga taasi oo ah qaybta ugu dambaysa ee daraasadda waxaa loo yaqaanaa ama loogu yeedhaa major findings conclusion and recommendations waxaana u qaybsantaa ilaa 3 qaybood oo kale ah sida tan ee hoos ku xusan saddexda qaybood waa saddexda qaybood korna aan ku soo sheegay hadda qaybtan dhaxana aan ku sheegay kaliya koow waxa waa major findings koow conclusion raba iyo recommendation saddexa idan marka chapter 5 kaaga markaad qorayso waxa ugu horeeya wax loo yaqaano the major findings of the study daraasooyinkaaga intaad qoraysay maxaa natiijo gaadha weeyaan findings kaaga maxaa waa hadii lagu yiraahdo waxa weeyaan maxaad soo ogaatay waxaad baaraynaa anaga hadeertaan employee satisfaction and productivity ma saameyn bay isku leeyihiin mise saameyn iskuma laha saameynta ay isku leeyihiin haddii saameyn isku leeyihiin saameyn xoogan miya mise saameyn qaldan weeyaan oo yara liidata saameynta isku leeyihiin ma positive ba mise waa negative eeg inta su-aal wax kasoo dhex bixi karta eeg findingskaaga marka waxaa lagu yidhi waa qaybta ugu horeysa ee chapterka shanaad ee daraasadda taasi uu cilmi baaruhu ku soo bandhigo xalka uu soo helay dhibaatadii taagneed ee sababtayna in daraasadan la qoro horta fiiri daraasadan sababta aan u qornay anaga waxay tahayba inay dhibaato ay jirtay ama problem uu jiray problemka jira wuxuu ahaa organizational productivity inuu hoos u dhacay ama khalkhal uu ku yimiday kaliya ma aha productivity inuu hoos u dhaco tusaale ahaan haddii shirkadaanidii ay soo saari jirtay 100 kiish maalintii waxaa laga yaabaa 50 kiish yani 150 kiish 200 kiish inay soo saarto laakiin haddana aan waxba laga iibsan idan haddaan wax laga iibsan weli waxaa jira marka wax loo yaqaano problem ah organizational productivity idan organizational productivity kaliya ma aha marka inuu hoos u dhaco oo haddii 100 laga sugayo oo 80 aad keento ama 60 aad keento waxaa laga yaabaa 100kii laga raba ka badan inaad keento laakiin wixii laga raba aadan keenin tusaale ahaan rooti oo kala iibisa oo waxa tahay wax loo yaqaano ishay bakery tahay ama foorna tahay rootigii aad iibinaysay anigoo macmiil ku ah maalin walba waxaan ka qaadan jiray 3 bur rooti ka qaadan jiray haddii rootiga khamiir yar oo soo galo ama uu yara adag yahay ama leebit laga ama bakin laga ilaaba ama ukunti laga ilaaba yani anima ka gadan dooni fiiri idan marka macnaha maaha marka mar walba productivity inuu hoos u dhaco kaliya maahane haddii tayadii hoos u dhacdo haddii sheeg adeegii hoos u dhaco kaba soo qaadbo 3 rooti waa ii soo dhiibtay 3 rooti aan subaxdii waa ku quraacan jiray hal saac gurigii waan ka baxaa shaqo aada wayna 12 saac bar xilliyadaas ay keentaa kabar hadda ii soo dhiibtay laakiin 2 saac lay keenay kabar yaa cunay 2 saac cid cunaysa malaha idan organizational productivity marka dhan walba ka imaan kara hal meel kaliya ka eegi idan shirkadan waxay ka cabanaysaa marka organizational productivity ayadoo ka cabanaysa marka anaga waxaan ogaanay organizational productivity-ga dhibaatada keentay inay ahayd wax loo yaqaano employee satisfaction shaqaalahaaga hadduusan qanacsanayn yani wax ku hagaagaya ma lahan waayo shaqaalaha asoo problem haysta wax sameynaysay asoo tusaalahan kaba soo qaadbo shaqaalaha mid ka mid ah saaka hooyadii baa xanuunsatayba isbitaal baa loo qaaday
shaqaalaha intaad fasaxi lahayd oo orod bax dhihi lahayd baa waxaa tiri ilaa shaqay qofkii markaa soo emotional ahaan fikirsan shaqadiina rabin inuu ka tago ayaa marka uu ku shaqeynaya waxaa laga yaabaa marka shaqadii aad soo haya maskaxdiisa inay baxdo rootigii gubto dabkii ku bato inuu wax ka ilaabaa laga yaabaa emotional in qofka ma joogo idan that's why marka problemkan sameeyay kaas buu ahaa qaybtan findings marka waxa la yiraahdaa waa qaybta ugu horeysa ee chapterkaaga taasi oo cilmi baaruhu ku soo bandhigayo xalkii uu soo helay fiiri anaga markay kay company noo imaaday waxaan naanay problemkan ku haysto markaan baarno waxaan ogaanay in employee satisfaction ka laga haysto sidoo kuma baxay anaga concentration ma dhiiboono yani la talin ma dhiiboono waxaan dhiibaynaa problem real ah oo xaqiiqa naga rabaa anaga cadeyntii soo cadeyn leeyada marka hore waxaan naanay fiiri war kay company ma tiina problemka inay haysta ee idinka haysta wax soo saarka waxa la idinka haysta dhanka shaqaale qanaacada nigala haysta marka shirkadda saas u sheegay waxay dhahday soo baaritaankii waa marka maxaa soo heshay waa halkan marka waxa ku bandhigaysaa dhibaatadii aad soo heshay aad sheegaysaa problemkii aad xalka u soo heshay sababtana in daraasadan la qoro marka daraasada inaan qorno sababta keentay rabay inaan maanta dhan sharaxayo kaliya taasi uu ku doonayo inuu xalkeedii yani la gaaro ama xalkeedii yani uu noqdo ama lagu xaliyo dhibaatadaasi xal baa soo heshay xalkii aad soo heshay laba in dhibaatadaas meesha lagu xaliyo marka okay fiiri waxa sheegtay problem inuu shirkadan haystay ayada noo timid way noo sheegtay anaga waxaan marka problemka ku haysta wuxuu ahaa organizational productivity-ga waxa laga haystaa wax loo yaqaano employee satisfaction-ka employee satisfaction si loo gaarana shaqaalaha waxa u sameeysaa baan dhahnay la talin aan ku siinay wax loo yaqaan promotion oo ah in shaqaalaha la hamigeliyo oo wax wanaagsan loo sameeyo promotion ka waxa weeyaan hadaa inta sameeyso inta ma ku siinaya hadaa inta sameeyso waxas baan ku sameeynaya yani higsi baa loo sameeynaya ma fahmaysaa hadaa maanta 2 saac dheeriya shaqeyso $50 dheeriyaan ku siin doonaa job security waxa weeyaan qofka inaad dareensiiso shaqada inuusan ka tagi doonin inuu asiga leeyahayba وفان سمع سي جوب سيكوريتي قفكان او dareemana ma aha ina dhahdo waxa sameeysa wax loo yaqaan ii sheeg waxaan kaalina job security-ga waa kana job security waxa weeyaan qofka in la dareensiyo shaqada inuu asigu leeyahay oo laga racdeyn doonin oo laga ceerin doonin oo si amaano soo ugu shaqeeyo idan si ay u dareensiiso wayna dhahdaa marka yani waxa keensata shirka u fur يعني $100 adoo qofkan ka qaadan jiray $600 ka qaadan jiray $100 shir ugu dar taas wixii faa'iido ku keenaysa marka labo asigina inuu ku aamino oo in xoolihiisa meesha ku jira ee oo si wanaagsan u shaqeeyo oo iska dhigo qof meeshan laga leeyahay wax kale labo hantidii hadana wuu dhowraya wax ma xadi karo si wanaagsan wuu u shaqeynaya ilaa hadii la qasaaro asigina wuu qasaari doonaa faanta malaynaya idan marka job security taas la yiraahdo marka waxaan anay shaqaalihiina uu qanco productivity-na uu wanaagsanaado labadan shay kula talina marka labadii shay markaan kula talina kadib waxa aan soo helnay baa la rabaa inaan ku sheegno major findings-ka okay conclusion inta ingle marka waxaan rabnaa major findings-ka inaan isla qorno si loo qoraa marka hore marka okay waxa ay geysaa marka page-kan iga tirtir halka waxaan ugu qortaa chapter 5 wala socota amaleynaya chapter 5 magaciisa intaan qori lahayn antan linagu soo koobiyay waka okay seen u bilowna marka waxaan la doonayaa marka ugu horeyso intaada bilaabin ka hor intaada bilaabin chapterka major findings-ka marka introduction yar anaga la doonaya introduction keena yar marka wuxuu noqonayaa waa 0.1 no 0.5.1 weeyaan ilaa chapter 5 aan joognaa waxaa leeyahay marka introduction okay na save gray si hadhow daatada nooga lumin aan noogu save gareysaa hagaha cilmi baa hagaha ardayga 2 ilaa halkaas baan lahayn halkaas waxaa noogu jira chapter 1 chapter 2 chapter 3 chapter 4 idan kan waa chapter 5 marka waa inaan folder cusub u sameynaa si daatadaada midba meel ay kugu jirto hadhow aysan kaaga lulumin
waxaan noogu qortaa chapter 5 noogu qor. okay halkaas noogu save garay. okay marka si marka introduction kaanti aan u qorno aan dhameystirno waxaan nagala doonayaa inaan soo kacsano wax loo yaqaano hagaha cilmi baaraha oo hore noogu kacsanaa. idan marka hagaha cilmi baaraha isla buug ku jir bislaan adeegsan doonaa oo waxaan leenahay 07724. okay introduction kan kooban ka soo koobaysana meel kale ma isticmaalayno waayo waan qoraynaa haddaan ahna waqti dheer uma helayno. okay control v halkan igu leh si marka halkan ay u qurux badnaato waxay dhahdaa time roman igu samee farta waxaa iga dhigtaa 12 iga dhig. haddaba qoraalka meel kale kama soo qaadan isla chapterkaagii un baa ka soo qaaday justify igu samee halkan farta waxaa iga dhigtaa 1.5 iga dhig. okay xogteedana waa ii koobiyeysa way save garaysan tahay. introduction ka kooban wuxuu yahay marka waxaan leenahay kaliya in this chapter kaniti wuxuu inta badan summarize gareynayaa ama uu sheegayaa wax loo yaqaan study findings keena asigu uu eegaya wax loo yaqaan objective keena. sidoo kale wuxuu eegaya conclusion ka iyadoo loo eegaya isla findings kaasiti. sidoo kale recommendation kana waxa iyadana la barbar dhigaya ama loo sameeyaa findings kaasiti. yacni chapter kani wuxuu loo qorayaa ama loo sameeyaaba inaan sheegno findings aan wax ka soo helin. labo findings ka marka iskama qoraynay waxaan u barbar dhigi doonaa ama u eegi doonaa objective keena employee satisfaction ka iyo productivity ga maxaa laga soo helay, promotion iyo productivity ga maxaa laga soo helay. findings ka saddexaad wuxuu ahaa job security iyo maxaa loo yaqaan productivity ga see loo soo helay. sidoo kale waxaan rabnaa conclusion iyo recommendation iyaguna sidoo kale waxaa lala barbar dhigayaa ama loo base gareynayaa findings kaasiti. marka anaga wax conclusion gareynayno conclusion keena anagoo ka hadlayno employee satisfaction ma aadina ciwaan kale waa inuu conclusion kaagi gabagabadaada waa inuu sal ku lahaadaa waxa aad ka hadlaysay. waa fahamta amaleynaya recommendation kaagana waa inuu qosayaa wixii aad ka hadlaysay. hadda fiiri anaga haday waxaan tusaale ku soo qaadanay in hay'ad aad ka shaqeyso gobol lagu diray caruur aad wax ka soo qoraysay laakiin aad soo ogaatay hay'adana kula talisay in meeshana imaam ay sheeg umuliso xumo ay ka jirto saas awgeedna loo sameeyo meesha immigration MCH cusub ama isla MCH kan kaliya la keeno gabdha umulisooyin ah. waa la fahmaa maleynaya fiiri marka waxa la yidhi wuxuu ahaa caafimaad wax kale caafimaad qusay bisli recommendation ka bixiyay. waa fahamta maleynaya hay'aduna qaban karto laakiin ka waran anoo caruurtii la diray haddii hay'adan dhilaa ka waran magaalada amni xumaan ka jirto waxa kale oo ka jira wax loo yaqaano dhalinyaradii kubadda garoon ay ku ciyaaraan banooniga ma haystaan waa hawl kale oo aan shaqo ku lahayn weeyaan. waa fahamta maleynaya waxa ula jeedaa conclusion kaaga iyo recommendation kaaga waa inay hal meel ka wada hadlaan. waa fahamta maleynaya waxa lagu diray Kai company waxaad ka baaraysiin employee satisfaction waxa siitay wana Kai company bis la talisa maxaa kala talinaya marka employee organization productivity ga se kor ugu qaadi lahayd laakiin hadana ka waran finance giina kor u qaada security giina kor u qaada lacagihiina shaqaale la diray weeyaan. recommendation kaygu waa inuu aniga ka hadlaa kaliya ciwaankii la diray. waxaan la hadlayaa ardayda ciwaankooda iyo recommendation kooda aan islahayn. waxaad arkaysaa arday economic ah loo diray ciwaan economic loo dhiibay wuxuu ka hadlayaa ganacsi wuxuu ka hadlayaa xataa ganacsiga waa wax imaan kara laakiin hadaa ka hadasho amniyaadka iyo wax khusaya malahan kuwaasiti. marka waxaan dhahnay findings keena iyo conclusion keena iyo recommendation keena waa inay base u lahaadaan findings kii aan soo helnay. waa fahamta amaleynaa tusaale ahaan marka waxaan ku yiri fiiri waa isluubka yani sida u soconaysaan kuliku sharaxaya si aad u fahamto waxaan ugu laabanayo. waxaan ku yiri findings kaaga waa inuu base u lahaada objective kaaga. waa fahamta Soomaha conclusion kaaga iyo recommendation kaagana waa ina base ugu dhigtaa findings kaaga. ila fahamta intaasiti waxa maanta dhan yani wareegayo oo sharxay intaas kaliya weeyaan. findings ka aad mahan meeshan ku qori doontid oo meeshan kugu qor hadeertaan waa inaad u eegtaa objective kaaga muxuu ahaa organization productivity ga employee satisfaction promotion iyo waxa loo yaqaan maxay oo chapter 1 ka ku soo martay.
waa tahay conclusionkaaga iyo recommendationkaagana waa inaad u base garaysaa findingskaaga waxyaabii aad soo heshay. intaas markaan ugu tago waxaa weeyaan keliya waxyaabahan islahaa yani ha kusii fahmo keliya weeyaan. intaas markaan ka tagno hadda waxaan nagala doonayaa marka waxay tahay halkan 5.1 ma aha waa 5.0 weeyaan raalli noqda. intaa marka waxay tahay 5.1 waxaa ku sheegi doontaa marka waxaa loo yaqaano major findingskaaga. intaas isla fiirnaa malayna waa isla ogaanay. hadda marka waxaan ku laabanaynaa chapterkeeni chapter 5 kaagna isla buuggaaga kugu yaalaa. intaanaan soo qaadanayn haddana marka waa inta naga qusaysa bisle weeyaan yaa meelaha kale nagama qusayaan waa waxyaabaha yaryar oo nagu qusayaan. intaan qori lahaa waqti badan naga baxayo adigana waqti kooban kuma fahmaysa dhawaati. intaaniti waxaan dhahdaa time roman nooga dhig farta 12 nooga dhig. tan kale waxyaabaha hadda aan sharxayo oo justify iyo aan sameynayo 1.5 ka tableka space aan ku sameynayo iyo time romanka iyo farta 12 aan ka dhigayo waxa city waxa ku siin doona wax loo yaqaan sheeg jaamacadaada ku siin doonto guideline-ka kugu yaala. idan qasab ma marka 12 aan hadda ka dhigo in 12 ka dhigtid jaamacadada waxa laga yaabaa in 14 kaaga dhigto. ardayda qaar waxa jirta 1.5 hadda ana adeegsadaa laakiin ardayda qaar waxa jirta loogu talagalay in 2 ka dhigtaan sheeg space-ka waa faanta amreynaya. marka qasab ma aha waxa aan aniga ka dhigayna adiguna ka dhigto. inta hadda waxaan ku sheegay waxay tahay waxaan dhaha marka there are waxa jira dhaha marka ama jirayba several findings yani waxyaabo badan oo aan soo helay oo natiijooyin ah kuwaas oo aan ku soo sharxay ama lagu soo aasaasay daraasadaaneeti oo ku saabsanaa organizational productivity. muujida ciwaanka waan iska leenahay ciwaanku waa rabaa ii koobi ciwaanka halkan waxaan ingilisaa oo ku saabsan employee satisfaction ka faanta marinaya. halkaana customer satisfaction ka hadlaya ciwaankaasiti waxay ingilisaa le bisle employee satisfaction iyo waxa loo yaqaano organizational productivity. ciwaankan hadda aniga qorayno ee ciwaanka kugu yaala waxa loo yaqaan ii sheeg buuggaaga hagaha cilmi baaraha wax yar bay ku kala duwan yihiin ciwaan ahaan marka loo fiirsho oo kaas hadda wuxuu ka hadlayaa buugga kugu qoran organizational productivity oo ah organizational productivity oo waxa loo yaqaan ii sheeg IV ku ah iyo customer satisfaction oo DV ku ah. marka waxa dhacday findingska intaan gelin ka hor waxa jira marka findings fara badan aan ka soo helay ciwaankayga ahaa employee satisfaction organizational productivity sidaa awgeed marka hoos baan ku lafo guri doonaa. okay intaas inta marka soo qaata marka buuggeena wax kale oo aan ugu baahanayno ma jiro marka ilaa aan ka tagi doono wax loo yaqaan maxay findingska. marka waxaan ugu laabistaa marka cashkeeni zaman. okay findingska marka wuxuu ka hadlaa marka wuxuu ka hadlaa hore waan u soo sheegay wuxuu ka hadlaa marka natiijooyinkii ama xalkii aad u soo heshay dhibaatadii taagneed xalkeedii laga rabaa hadeertaneed xalkiisay ku heli karnaa. marka inta markaan qornay shidantii iga raali noqo waan yara xiray calaashan laakiin wuxuu noogu jiraa hagaha cilmi baaraha 2 hadaa yani hadda waa ujeedaa accident aan galnay sax maaha laakiin haddii aan diiwaan gelin lahayn xogtaas oo dhan way iga dhumi lahayd. hadda waa kan soo maaha sababta aan hadaa u diiwaan gelinaya ama u save gelinaya sababtaasay tahay. marka isku day ustaado marka ciwaankaaga hal eray haddaad ku kordhiso tusaale ahaan dabiri meeshan summary soo maaha dheh haddaan full point u sameeyo oo isi joogsa u sameeyo waa inaad control S mar walba taabataa ku save garaysmaayo si hadhowaati waxaa laga yaabaa adoo chapter 1 oo dhan soo dhammaystiray markaa imaado 1.9 sheege waxa loo yaqaano conceptual framework markaa imaado wixiina aadan diiwaan gelin masquul yara aadaysaa computerka dablaan u damaayo computerka markaa soo kiciso xogtaas waa ku deysi inaad diiwaan geliso waa muhiim idana. hadda marka waxaan u tageynaa chapter 5 keena waxaan marka xalkii naga laba inaan sheegno xalkan ka bilaabana marka chapter keena toos oo noogu bilaawday
idan waxaan ka bilaabi doonaa marka muhiimna ah inaan soo ogaano soona furano chapter 4 keena. intaada furan ka hor marka waxaa laga rabaa inaad marka hore soo sheegto waxa loo yaqaano maxay objective-ka koowaad. waxaa leedahay marka this objective of the study, objective-kan ugu horeeya ilaa waxaa nala sheegay findings-keena waxaa muhiim ah in objective-yada sameeyna marka ama this inta dhiileed waxaa lahdaa first objective first objective ugu horeeya of this ama of the study inta dhiileedna waxaa lahdaa of this study ee daraasaddaanayti waxaa dhahdaa focus on wuxuu doorka saarayay waxaa looga hadlayay to determine inuu xooga saaro ama la faguro how sida promotion يعني ama how effect ama how promotion sidis what how promotion sida promotionka effect on oo uu la falgala ama uu saameeyo waxa loo yaqaano organizational productivity. waxaan isku dayaa inaan hortaada ku sameeyo way kuwii hore soo koobiyeysay kan waqti badan naga cuni doono. waxaa dhana marka first objective-ga anaga aan qaadan doono ee daraasaddaanayti waxaa lagu lafaguray promotion iyo waxa loo yaqaano promotionka sida uu u saameeyo organizational productivity. waayo chapter 1-kaagii haddaad ila socotay shayga ugu horeeya aan fiirinayna wuxuu ahaa objective-keena wuxuu ahaa aan soo furo maxaan u fiirinay waxaan korkaaga sheegayaaba si aad ila ogaato. waxaad tagtaa halkaan tag chapter 1 gal chapter 1 markaa gasho fur chapter 1 markaa furto waa kan chapter 1 objective-keena muxuu ahaa waa kana mujida objective-keena ugu hore wuxuu ahaa waa maxay question-ki waa kaasi wuxuu ahaa to assess si uu eego relationship-ka ka dhexeeya promotion iyo organizational productivity. inta misla ogaanay idan marka anaga dhan laba objective kaliya tusaale ku qaadanaynay. idan objective-keena ugu horeeya wuxuu ahaan baan nahnay horta kan naga xir don't de okay so no wale marka waxaan ana first objective-ka ugu horeeya ee daraasadeena waxaan door ka saaraynaa inaan la fagorno sida promotion u saameeyo organizational productivity. okay intaas markaan isla sheegnay kadib hadda waxaan ku laabanaynaa marka chapter 4-kaaga u baahannahay chapter 4-kaagii ayaan u baahannahay kan iga xir kan iga xir kan iga xir kan iga xir kan igili marka waxaan rabaa chapter 4 igii waxaan sheegay chapter 5 inta badan chapter 4 u baahanaya. chapter 4-kaaga waxaa eegaysaa marka objective-kaan hadda mujida soo meel ma jiro aan ku soo sameeyno analyze meeshii aan tegaynaa marka chapter 4-kaaga waa kana taasiga ma yes promotion iyo productivity marka xaleena waa kana marka intaana soo qaadanayna control C leedahay oo waxa leedahay marka loo eego yani above tan waan ka tirtirin doona marka halkaan tagno intii gee meel hoose igu koobiyay above tan naga tirtir marka waxaa leeyahay marka fiiri waayo objective-ka ugu horeeya labadaas buu ahaa. idan marka table-kadii kan ka hooseeya soo qaadanaysa waxaa leedahay marka according to marka loo eego 4.7 yani markaa ku laabato 4.7 waxay cadaynaysay level of promotion-ka oo cadaynayay. waxaana kusoo sheegnay average mean-ka wuxuu keenay 2 keenay labadaas standard deviation-kiisa 1.2 oo keenay. idan overall gabi ahaanba marka result-ga meesha ka soo baxay way cadaynaysaa in promotion iyo productivity ee daraasaddan markana low u yahay. wujida Kai company anaga markay noo imaaday waxaan u sheegnay xaaladda haysata oo problemka organizational productivity-ga laga haysto waxaa keenaya baan nahnay organizational productivity-ga waxay nagu tiri soo baaray nagu dhahday ciwaankii waxaan qaadanay organizational productivity
iyo waxaan qaadanay employee satisfaction oo IV iyo organizational productivity oo DV inaad ugu wareerin rajeynayaa labadaas si aan u baarno waxaa nagala doonayaa si organization employee satisfaction san u ogaano waa inaan qaadanaa wax loo yaqaan promotionkii waxaan dhahnaa marka promotion and dimension labada dimension aan qaadana midna wuxuu ahaa promotion midna wuxuu ahaa job security labadaasi dimension waxay si guud ahaan noo gaarsiinaysaa ama aan ku cabiri karnaa shaqaalaha ma qanca mise ma qanco haddii shirkadan sameyso promotion oo job security ay shirkad shaqaalaheeda u sameyso waxaan ognahay in shaqaalahaasi uu qanci doono waayo shaqaale la dhiirigelinayo oo 2 saacadood shaqada ku daro lacag loo kordhinayo oo part time haduu shaqeeyo lacag loo kordhinayo oo haduu soo dhaqso lacag loo kordhinayo oo fasax la siinayo oo haduu cunug ka xanuunsado loo daaweynayo oo hadii xaaskiisa umasho loo siyaaranayo loo tagayo hadiida loo geenayo loo booqanayo yani shaqaalahaasi uu qancaya soo sax ma aha yes laakiin shirkadan kayn company waxaan u jeednaa inaysan sameynin waxa loo yaqaan promotion waayo haddii promotion sameyn lahayd fiiri promotionka waxa weeyaan kaliya shaqaalahanay maalin walba waxa laga doonaya 20 kiish oo bur ah inuu soo saaro laga rabaa shirkadda u soo saaro 20 kiish si uu u soo saaro marka waxa ku jiri haddii aad 25 soo saarto waxa aan ku siin doonaa lacag dhan $20 aan ku siin doonaa fahmaysa mushaarkiisa ma aha hadaba ugu lacagtaasiiti waa lacag mushaar dhiirigelin weeyaan canugaaga yarka ba waxa ku jiri hadaa dugsiga juzc ma gaarto abo waxaan ku siin doonaa wax heblaayo waxaan ku gaarsiin doonaa meel heblaayo waxaan ku geyn doonaa hotel heblaayo maalin jimcaha kubad baan ku soo geli doonaa waxyaabahaasi weeyaan promotionka marka idan waxaan ognaa markaan baarnay data analysis gelinay IBM sheega IBM ka ama SBS ka soo gelinay waxaan soo ogaanay productivity iyo promotion ka ba inay yihiin wax loo yaqaan fair low inuu yahay shaqaalaha maadaama findingska aan soo helnay halkeena muxuu yahay marka halkeedu wuxuu yahay in shirkadaneeti yani idan marka meeshan waxa ku leedahay sidaa daraadeed the researcher qoraagu indicate wuxuu cadeynayaa that the overall of labadan isu koobiyo marka intaan qori lahaa are low so and the companyguna halka waxa weeyaan sidaa daraadeed waxaa dhahdaa marka researcherka wuxuu cadeynayaa in gabi ahaanba promotionka iyo productivity-ga ba inay low yihiin maadaama low uu yahay marka waa in company-ga marka waa inuu ka shaqeeyaa arrintaasiiti halka ugu horeeya aan soo bandhigna wuxuu ahaa haddii promotionka la hirgeliyo oo shaqaalahaneeti waxa laga doonayo higsi loo sii sameeyo waa in markaasiiti asigana shaqaalaha tusaale ahaan haday waxaan soo qaadanay qofkan waxa laga doonayaa 20 kiish oo bur ah laga doonaya maalintii adigoo maamulkiya waxa dhahdaa haddii aad 25 soo saarto waxaan ku siin doonaa lacag $100 aan ku siin doonaa fiiriya $100 ma aha lacag oo shaqeystay oo yani mushaarkiisa ma aha maanta bishii waa 30 soo maaha mushaarkiisa ma aha laakiin wuxuu ku muteystay 5taas uu soo kordhiyo ku muteystay fiiri marka qofka maxaa u sameysay promotion baa u sameysay waa dhiirigelinta aan sameysay maxay keentay 20 baa ka sugi jirtay 25 ay keentay idan meesha waxa ku cad marka haddii promotionka la sameeyo productivity-gana uu sare u kacayo intaasina la fahantaa rajeynaya buugaagana sidaas oo kale inuu qorta laga doonaya hadda waxaan qornay objective-ka ugu horeeyaan qornay objective-ka labaad nagala doonaya halaya marka intaan isoo koobiyay intaan qori lahaa
saan u koobiyey halkaan gey first meno hadda second leh second objectives of this study wuxuu doorka saarayay how job security ilaan markaan ku laabano waxa loo yaqaano ii sheeg chapter 1 keena mujida wuxuu ahaa xiriirka ka dhaxeeya job security iyo promotion taasawid marka waxaan leenahay job security halkaas geli job security si uu saameeyo organizational productivity job security okay waxa u laabanaysaa marka chapter 4 kaaga chapter 4 kaaga markaad ku laabatay kadib waxaad tegi doontaa objective kaaga kugu xigo ahaa job security halaan bisa ka soo koobiyay doontaa wax kale uma baahnidba asigana low waaba wajida intaana ka soo koobiyaysanaysaa kor u qaadaysaa time roman ku yahay 40 bisa 12 ka dhiganaysaa kana halkaan geysanaysaa kadib waxaa leedahay waxaad tiri sidoo kale abaftan ka titir this adina dale waxaa raada marka according to marka loo eegaa la yidhi according table-ka 4.8 markaa eegto wuxuu eegayay level job security-ga marka average meanka uu soo saara su-aalaha dadka weydiisa data analysis-kaaga wuxuu ahaa 1.9 taasoo cadaynaysa inay low tahay sidoo kale kana deviation-kiisana waa 2 sidaa awgeed markaa waa low asigana maadaama uu low yahay asna waxaa leedahay keliya the procedure away isoo koobiyey so that halkan isoo koobiyey okay sidaa daraadeed wuxuu cadaynayaa markaasina job security halkan ku bedelo chapter 5 waa intaasi tiba productivity are low iyaguna waa low are also inta ka dhigayda marka si uu qurux badnaato are also low company-guna waa inuu iyadana ka shaqeeyaa labadaas objective bisa anaga lahaynay hadda waxaan gelinaa waxa loo yaqaano conclusion oo maxaa tahay nagey booggeena hagaa cilmo hadda chapter 4 uma baahni chapter 2 uma baahni chapter 1 uma baahni chapter 1 adaa wax kugu tusinaya keliya waxaan rabaa inaan haddana eegno conclusion-keena conclusion oo maxaa tahay conclusion-ka waxaa weeyaan waxa loo yaqaano ii sheeg waa qaybta labaad ama qaybta xigta ee chapter 5-ka ee daraasadda taasoo cilmi baaruhu ugu sameeyo daraasadda gundhig ama gabagabo isaga oo wax aan ka badnayn paragraph ku soo koobaya daraasadda xagga xogta ay xambaarsan tahay wajida yani waxaad soo koobaysaa xogta guud ee ay xambaarsan tahay daraasadaada hal paragraph ku soo koobaysaa magac maxaa u bixinahay dhihino magac waa kanaaba control C soo dheh halka imaaw inta keenso waxaa ku qorataa 5.2 ku qoro kadibna koobiyey kadibna waxaan dhahdaa kaas koobiyeyso okay intaas markaa dhacda kadib soo baxaysaa waxaad tegaysaa wax loo yaqaano buuggaagii hagaha cilmi baaraha tegaysaa waxaad tegi doontaa fiiri conclusion-ka wuxuu kugu yaalaa maxay bogga 115 oo kugu yaalaa marka 125 dheh waa kana marka conclusion-ka intaan waa saan oo kale soo qaadanaysaa asina noo soo wada koobiyey noo soo wada qaat control V noo marka sorry chapter 4 kaaga hal mar u baahan doonaa laakiin markaan u baahana waa tegi doonaa hal mar halaan baa aan qorqorxino time roma waa noo yahay 412 noo kaliya inta kale waa saxan tahay okay save garayna waxaa tiri conclusion waxaa markaada study investigate horta daraasadan this study daraasadan wixii investigation baaraysay organizational productivity ga xagga nooge control X noo dheh waxaa tiraahdaa employee satisfaction
mujida daraasadda tani waxyaabaha u baahanaa ka bedelo waa kaliya daraasadda tani waxay baaraysaa nana employee satisfaction iyo organizational productivity-ga conclusion-kaaga marka ugu hore waxaa ku bilaabaysaa xogtaada daraasadada xambaarsan tahay IV-gaaga iyo DV-gaaga ee daraasadda by observing waxaad ka baaraysa waxa loo yaqaano Indian Ocean Restaurant iska tirtir Kai Company gasho way isla fahmaan maleeha ilaan xarunta wax ka baarana Kai Company yahay target population keenu ee daraasadani wuxuu ahaa employee ka shaqeeyo Kai Company soo koobiyay Kai Company okay in Muqdisho Soomaaliya intaas markaa dhacda marka waxaa leedahay hadana the researcher wuxuu soo gabagabeynayaa asigoo findingska eegaya boqolkii qofood anaga meeqa qofood aan oo ahayd waa inaan soo kicinaa chapter 3giina waa inaan soo kicinaa si aan u ogaano dadkeena population-keena imise la ekaayeen population-keenu waa 61 qofood weeyaan noo koobiyey halkaan tag meeshan 100 u dhaama aragtay 61 nooga dhig okay wuxuu dhan marka researcher-ku wuxuu soo gabagabeynayaa asigoo eegaya natiijooyinka laga helay 61 qofood ee ka jawaabay su'aalaheeni that there is positive impact in saameyn 10 ay isku leeyihiin organizational naga bedel asigana ciwaankeena noogu bedel afaanta malaynaya waxaa leedahay ciwaankan noogu bedel okay wuxuu yiri marka researcher-ka marka wuxuu soo gabagabeynayaa asigoo u eegaya natiijooyinkii laga helay 61 qofood ee ka jawaabay in ay jiraan la yiri natiijooyin 10 ama impact toosan oo positive oo isku leeyihiin employee satisfaction iyo organizational productivity fiiri positive kan la sheegay waxa weeyaan ninkan loo yaqaano ii sheeg tusaale ahaan inta ku bixi raba haddii kan uu kordho increase hadduu kordho kan ma kordha mise ma kordha su'aasha adiga ku weydiiyay iga jawaab employee-ga haddii shaqadiisa toos laga dhigo oo la qanciyo oo la wanaajiyo oo la sharfo la ciiseeyo la soo dhaweysto wuu kordhaa soo maaha yes haddii kan la kordhiyo kan decrease ma ku dhacaya mise increase ku dhacaya markuu increase ku dhacaya waxaa loo yaqaanaa positive impact yaa loo yaqaanaa saameyn 10 weeyaan laakiin ka waran hadduu kan kordho kanna uu ku dhaco waxa loo yaqaanaa decrease uu ku dhaco soo ma dhici karto yes decrease maxaa weeyaan decrease tusaale noocaas waxaa noqon karaa waxaad ka warantaa sigaarka ama macsiyada iyo bulshada ka waran hadduu sigaarka ama waxa dhalay sigaarka iyo ama sigaarka iska dhaafba sinada dhabo diinta waxay noo sheegtay sinada haddii kororto wax walba inay hoos u dhici doonaan okay bulsho meel joogta sinadii ku badatay bulshadaas ma jireysaa mise ma jireyso way baaba'aysaa akhlaaqiyadkeeda dhamaanteed tusaale ahaan haddii sinada increase ay noqoto bulshada maxaa ku dhacaya decrease qaar igoo qaar ay geeriyoodaan qaar xanuun u dhintaan qaar ilaahay subxaanahu wa tacaala igoo ka cabsanaya meeshay ka guuraan bulshada qaarkood ilaahay subxaanahu wa tacaala igoo sinada ku jiro in ilaahay ku imtixaamo cudurro ku imaadaan geeriyoodaan okay idan waxaan sharxayaa waxa loo yaqaanaa positive iyo negative hadda ciwaanka ugu horeeyo waxay isku leeyihiin waxa loo yaqaanaa positive impact afaanta malaynaya hadda ciwaankan ugu horeeyo kaasay isku leeyihiin halka ciwaankan hooseeyana aad u jeedidna ay isku leeyihiin waxa loo yaqaano negative impact aan ku celiyo oo waxa ula jeedaa haddii IV-gaaga uu kordho DV-gaagana uu kordhaayo waxaa loo yaqaanaa positive impact
haddii IV-gaaga uu kordho uu DV-gaagana hoos u dhacaya waxaa loo yaqaanaa negative impact. IV-yo badana waxaa jira hadday kordhaan DV-ga saameyn u keenaya. maxaa ka mid ah tuuganimada iyo kambaniga ama financiga iska dhaba. haddii tuuganimada ay kororto kambaniga financegiisa hoos u dhac maa ku imaanaya mise kor u kac waxaa ku imaanaya hoos u dhac. idan marka haddii marka fiiri IV-gaaga uu noqdo fraud inay saxanta waa rajaynaya erayga fraud waa saxanahay. financiga netina waxaa ku dhacaya hoos u dhaca ku dhacaya. ciwaankaaga marka waxaa weeyaa waa negative impact weeyaan. sidoo kale kana waa hadda waxaan kala ogaanaa marka negative impact iyo positive impact kaliya ku sharxay. okay inta markaan soo faahna marka oo yani ciwaankaaga impact positive impact maxaa la yiraahdaa negative impact maxaa la yiraahdaa aan ka soo tagnay. the researcher marka conclude wuxuu soo gabagabeynayaa findingskii uu ka soo helay 61 qofood aan yani ku soo yani su'aalaha aan hor dhignay ee noo jawaabayay waxaan ka helnay baa la ama ku soo gabagabeynayna that in jiraan positive impact ba waxa ka jira ciwaankeena employee satisfaction-ka iyo organizational productivity-ga. And it's a correlation xiriirkooda waana xiriirka ka dhaxeeya labadooda weeyaan independent variable dependent variable-ka waayo labadan xiriirka ka dhaxeeya wuxuu ahaa positive impact. sidoo kale waxaan dhahnaa marka sida awgeed the organizational productivity-ga marka has labadan isoo koobiyey yani weli waxaan badbadalaynaa ilaan xogtan hore meelaan ka soo qaadanay ha ilaawinta. employee satisfaction marka haas wuxuu leeyahay positive impact positive and media marka fiiri positive kan ma high miya mise waa low mise waa medium weeyaan. si lagu ogaadaa chapter 4 waan kuugu soo sheegay. idan chapter 4 ka ku laabo marka chapter 4 ka ku laabato waxaan ka hadlayaa chapter 4 meeshan marka la joogo YouTube ka hagaha cilmi hagaha ardayga marka la joogo waxaan soo sheegnay marka correlation ka la joogo ee aad doonaysid inaad ogaato xiriirka ka dhaxeeya labadan variable ee IV-gaaga iyo DV-gaaga positive-kooda ma low-ba ma high-ba ma medium-ba inaad kala ogaato haddaad doonaysid yani chapter 4 ku noqdo waa arkaysaa in badan. idan marka hadda waxaan u baahanaa marka chapter 4 inaan ku laabano wax yar dan yaraa naga soo gashay. chapter 4 keena waxaan rabnaa inaan ogaano xiriirka ka dhaxeeya labadan ma high-ba mise waa low. correlation waa kana xiriirka ka dhaxeeya waxaa weeyaan waa low positive weeyaan idan marka meeshaan joogto haddana noo bedelkan kor nooge waa positive-kiisa waxaa waaye waa low weeyaan waa low relationship baa ka dhaxeeya wuxuu low relationship la leeyahay marka organizational productivity iyo soo qaada sigana hal mar ku laaban doonaa. xogtaanayti meeshan kugu taalo ayadana waa iska tirtiraysaa xogtaada ku buuxsanaysaa. yani anaa iska hadlayo yani adiga waxaa laga yaabaa inaad xogtaada caadiga ah soo qaadato xogtaana soo qaadanaysaa oo cadaynaysay xogahaaga kale saas awood markaa xogtaan dhan waa iska wada tirtiraysaa. markaas ka dartay kadib full point-geeda si productivity meeshan oo ka dhahay waxaa weeyaan waa organization employee satisfaction weeyaan waayo ciwaankan aan wax ka badbedelayna IV-giisa wuxuu ahaa productivity. waxaa leedahay marka employee satisfaction-ka actively encourage wuxuu si guud ahaan u dhiirigelinayaa maxay waxa loo yaqaano organizational productivity. in Indian Ocean naga bedel waxaa noogu bedeshaa Kai Company ilaa xaruntan waxay ahayd Kai Company inay ila socoto waa rajaynaya waxaan aan badbedelayo waa xogtii hore aan xogteedii ku badbedelanaya ama xogteennii ku badbedelaya with tend taasoo u janjeerta inay kor u qaado growth and profitability-ga in the
company meesha restaurantigana company ku bedelo or amasa other companies companyga la soo koobiyeyso halkan keen ku koobiyey companies ka dhigo in Muqdisho Soomaaliya. Therefore sidaa daraaddeed starting concluded daraasadu waxay kusoo gabagabeyneysaa in productivity-ga in employee satisfaction-ka waa kana in employee satisfaction-ka of the company company-na waa kana noo soo koobiyey of the company-gu make easier satisfied meeshana waxaa noogu bedeshaa make easier encourage wuxuu dhiirigelinaa una wanaagsan yahay organizational productivity-ga. intaas isla faanaa umaleynaya marka hadda buugaaga inta waa ku siman kartaa recommendation haddaad doonto waa iska dhaafi kartaa laakiin muhiim weeyaan waana qasab inaad ku dartaa 3 ilaa 4 recommendation waayo maalinta panelka waa lagu weydiin doonaa. hal mar aan ku laabana marka waxaan sheegnay chapter 5 kaaga markay aad diyaarinaysid wuxuu kaaga baahan yahay kaliya saacado kooban 2 saac 3 saac amal uu kaaga baahan yahay 2 saac ilaa 3 saac waxaa lagaga baahan yahay marka inaad adiga si qurux badan oo wanaagsan wanaagsan u habayso. waxaan lagaa doonayaa 3 qaybood inaad ugu hadasho maxaa soo heshay dhibaatadii taagneed ee ciwaankaaga ka hadlaysay maxaa soo heshay maxaa ku soo gabagabeynaysaa oo guud ahaan ku dulmar ku sameynaysaa iyo recommendation-kaaga. ciwaankaaga intaad gelin ka hor waxaa laga rabaa waxaan wax loo yaqaano natiijooyin yar waxaa la horraac yar laga rabaa. horraac yar waxa ku bixinaysaa waxay tahay chapterkan wuxuu ka hadlayaa findings of the daraasada ka hadlayaa findingska daraasadana wuxuu ku base gareynayaa objective-ka daraasadda. sidoo kale conclusion-ka iyo recommendation-kana wuxuu u asteynayaa wax loo yaqaan findingska. fahmaysaa findingskii waxaa qasaba in objective-ka fiiri major findingskana waxaa qasaba inuu salka ku hayo objective-kaaga. ilaa hadda fiiri find objective-keena aan soo helnay waa promotion iyo productivity. sidoo kale kan labaadna waa job security iyo promotion waa fahantaa maleynaya. okay recommendation-kaaga iyo conclusion-kaagana waa inay salka ku hayaan wax loo yaqaan maxay natiijooyinkii aad soo heshay. hadda conclusion-keenu kala fiiri waxaan aanay employee waxaan sheegnay IV-geena DV-geena iyo waxaan sheegnay unit of analysis-keeni target population-keena wuxuu ahaa 161 qofood u ahaa. xarunta waxaan ka baarnay kayn company ahayd inta badan field findingska soo muxuu ahaa 61 qofood daraasada nooga jawaabay waxaan ka soo ogaanay in wax loo yaqaano maxay impactiga ka dhaxeeya employee satisfaction-ka iyo correlation positive inuu yahay. sidoo kale waana correlation-ka labada shay ka dhaxeeya waa ka employee satisfaction-ka wuxuu leeyahay findingska aad soo hesho oo dhan wuxuu ka hadlayaa objective-kaaga bas waa fahantaa marayha. conclusion-kaaga wuxuu salka ku hayaa findingskaaga. recommendation-ku marka asigu wax culus ma aha hore saan soo sheegay waa iska dhaafi kartaa laakiin inta badan waxa fiican inaad yaro qortaa qurux badan. sidaa ogeed marka si aad recommendation ugu soo darto kow waxaad fiirinaysaa numberka noo marayay wuxuu noo marayaa 3 noo marayaa halkan ay imaanayna waxaa leenahay 5.3 bold nooga dhig. okay adoo iswareerin kor aad recommendation noo soo calaameey noo soo koobiyey hoos noo keen. okay recommendation marka maxaa tala jeedin ku soo jeedinaysaa bal aan eegno marka tala jeedintu qaab kala duwan loo sameeyo way jiraan. hadda anaga research fiican oo qurux badan oo wanaagsan waan soo sameynay laakiin research-ka aan soo sameynayna moosan ahayn research real ah oo shirkad real ah loo sameeyo. runtiina xataa midka hadda adigu aad sameynayso ka arday ahaanba yani runtii ma aha ii sheeg yani mid yani hagaagsan ama qurux badan oo yani waxaan ula jeedaa real problem jira ma hagaajinaysid. xarunta hadda wax ka baarayso waa xarun iska soo qaadato iyadoo weyn bangiga doona ha noqdo maqaayadii doonta ha noqoto dukaanka doona ha noqdo xaruntii doonta ha noqoto magaaladii doonta ha noqoto yani problem jira oo bulshada haysta hadda ma xalinaysid laakiin proposal iska cayar caadi oo sambal soo qaadanaysa. ida marka recommendation-ku marka waxa qasab ah inuu salka ku haya waxyaabaha aad baaraysay.
waxaan soo sheegnay recommendation horta maxaa la yidhaahdaa si aan usoo ogaano waa inaan aadna waxa loo yaqaano boggeena hagaha cilmi baaraha. hagaha cilmi baaraha markaa tagno pageka 77 markaa soo fiiriso kugu yaalaa 77 waa 67 kugu yaalaa, laakiin aniga page badan baa bogga ii yaalo waayo wuxuu ugu badanayaa buugagtii hore waa pageka 67 weeyaan. recommendation maxaa tahay? recommendationku marka wuxuu yidhi waa qaybta xigta ama qaybta saddexaad ee jabtarka 5aad ee daraasadaada, taasi oo cilmi baaraha kusoo gudbiyo wixii talo iyo waano ah ee uu talagalay yacni akhristayaasha dambe ee buuggaaga daraasada akhrisan doono ama xaruntaba intuba aad u siin doonto waxa loo yaqaano recommendation aad siin doonto. marka talintaadu si aan talin u qorno marka waxaan leenahay bal talinta buugga kugu qoran ee buugga hagaha cilmi baaraha maxaa naga caawinaya, bal aan fiirinaba. waxaan tegaynaa 125 buuggaaniti 125 dheh 126 xataa recommendation waa kana waxaa naga caawin karaa buuggan hadda markii wuxuu yidhi based on marka loo eego various result of findings researchers suggest the following recommendation the business people and every sector which involve private and sector productivity has become the best important to the growth. okay, warkaan kooban oo introduction ahaan usoo qaadanay. warkan guud waxaa weeyaan waan akhrin doonaa. pageka waxaa dhahdaa 12 iga dhig farta, justify ka dhig, kadibna 1.5 ka dhig. waxaa dhahdaa marka fiiri based on yani iyadoo lagu base gareynayna various result of findings, waayo conclusionkaaga iyo findingskaaga iyo recommendationkaaga waxaa qasaba inuu salka ku hayo findingskaaga mar walba oo kugu soo celcelinaya. yeesan dhicin recommendation aad ka bixiso waxyaabo aan qusaynin daraasadaada. haddaad midwifery tahay business ha soo aadin, haddaad business tahay midwifery ha aadin, haddaad caafimaad tahay engineering ha aadin. iska fiiri buugaaga based on waxa marka anagu eegayna marka natiijooyinka kor ku soo aragna researcherka wuxuu ku soo jeedinayaa talooyinka soo socda, wuxuu siinayaa la business people ko siinayaa iyo every other sector iyo xarumaha kale kuwaasoo ku howlan la private iyo public haday noqon lahaayeen. haddaba daraasadana waxay xooga saaraysaa wax loo yaqaan organizational productivity xooga saaraysay. he has become kaasoo noqonaya the best important to the growth and the profitability of the organizations. xooga waxay saaraysaa daraasadani organizational productivity xooga saaraysay kaasoo muhiim u noqonaya la kobaca iyo faa'iidada company-ga. sidaa daraadeed researcherka wuxuu soo jeedinayaa talooyinkan hoos ku xusan. maxaa weeyaan talooyinkan? kow waxaa ka mid ah la marka wuxuu yidhi Somali yani recommendationkan wixii naga quseeyaan qaadan doonaa kuley. wuxuu yidhi Somali companies Soomaaliya waa inay waxa qasaba inay hubiyaan helitaanka right leader, hogaamiye qurux badan inay helaan companiyaasha, kaasoo dad wilman kaasoo haddana maxay wilman their organization يعني maamul uun ka noqon doono loola jeedaa saan rajaynayo. that will work kaasoo yacni that will man the researcher the woman ma noqon kara miya. kule recommendation kaniti waxyaalo ku yaro jiro raali noqda, laakiin muhiimadda guud waxay tahay un kambaniyaasha Soomaalidu waa inay yacni hubiyaan eena helaan right person kaasoo noqon doono bay dhaheen that will man their organization. will mean malaha ka howlgeli doona loola jeeda ergaas man marka la aro nin ahaan hadduu ma taag lab ahaan uma taagna, laakiin man work ahaan camalo u taagan yahay. in order si a leelato ajeef loo gaaro their set goal objectives kooda u gaadaan. managerkana should understand waa inuu fahmaa baa layidhi that in employee-gu ay u baahan yihiin analysis to be done. waadahay alaha noo qadarta waa recommendationka koowaad waaye waa tahay
hal mar asixi doonaa qurqurxin doonaa sidoo kale wuxuu yiri company Somali organizations kale must sacrifice waa in u huraan leeyahay cost dhaqaale for quality product yani in product la soo saaray inuu mid yahay quality inuu yahay in dhaqaale u huraan in order to improve si loo saxo their productivity-gooda kana wana anfacaya har recommendation kala ku darsanayna kadib waa ka tagaynaba waa recommendation-du inuu ku bata ma fiicna wuxuu yiri sidoo kale customer hadaad aragtana waa one of the tool hadda mujida kan ma qaadan karno sababta loo qaadan karo wuxuu ahaa buugana hadda wax ka qaadanayno ee aad wax ka qoraysid waxa uu xoog saarayaa organizational productivity iyo customer satisfaction adiga marka customer lagu ma dirsan hada recommendation kan adigu ma qaadan kartid sababta ku qaadan karo wuxuu yahay wuxuu ka hadlayaa customer-ka wuxuu yiri the customer-ka wuxuu yiri waa one of the tool taasoo loo isticmaalo in lagu joogto yani sheeg attainment gaarita yani waa tool kamid toolka loo adeegsado in lagu gaaro baaliyiri heerka ama goalka organization-ka iyo objectives-ka sida daraadeed organizational kastana should as waa inuu yahay baaliyiri ama uu adeega ama uu qasab issue ka dhiga importance weyn muhiim ka dhiga kan waa qaadan karnaa markii aan qaadano waan qaadan karnaa markaan kula waxa uu jeedaa laqbadan qaadan karnaa inta waxaan ka dhigaynaa marka employee ilaa anaga waxaan ka hadlaynaa muxuu ahaa employee waa fahantaa umadayaa waliba employee satisfaction hadaa noogu dar way fahantaa umadayaa marka internet kor noogu jiid kadib inta noo sax marka time room nooga dhig fartana 12 nooga dhig ilaahay oo nawaafaji kana 1.5 oo yahaba oo traditional time room nooga dhig hada bilaa tawfiiq intaas recommendation bixina baadanaga koow labo waa saddex recommendation bixinay wala soo maaha recommendation kale muu baahnaba anaga chapter 5 keen hada saana ku dhameystirnaba ina elephant rajaynaya okay hadda marka waxaan rabnaa hal wiji inaan sameeyno wijigaas muxuu yahay marka waxa weeyaan reference inaan sameeyno references oo sameeysid marka hadda fiiri reference-ga waxa laga chapter 5 inuu ka dambeeyo that's why marka reference-gaaga marka sameeynaysid waxa qasaba inuu ka hooseeyo waxa loo yaqaano chapter 5 kaaga hadda waa u jeedaa halkaan marka chapter 5 kaaga uu ku yar hooseeyaa that's why marka halkaan marka joogto marka chapter 5 numberka aan siin doono recommendation ka sheegay reference-gu waa 5.4 weeyaan soo kadib waxa leedahay references like references waxba ku qoran asaas ku qori doono kulay fiiri marka reference marka tagayno marka halkaan aad tagi doonaa waxa fiirisaa application menu-ga fiiri ama application bar-ka halkaan waxa kugu yahay reference jacksi doonta kadibna waxa dhigi doontaa bibliography marka dhacday kadibna asaa ku soo tixi doono marka reference jack ku siino marka fiiri inta wuxuu marka there is no source in the current document ilan chapter 5 ka anaga wax reference oo soo diiwaan gelin ma jirto idan waxa qasaba marka reference samee wana shantaada chapter hal meel isku keentaa in elephant rajaynaya marka hadda chapter 5 waa noo furan yahay waxa rabnaa inaan ku laabano ii sheeg chapter 1 keena fur word ka fur chapter 2 gaaga word kiisa fur ayee sidoo kale waxaan rabaa chapter 3 gayga fur chapter 3 marka noo furto kadib waxa kale noo furtaa chapter 4 keena fur chapter 3 chapter 4 wax oo inta badan ii sheeg reference-ga kuma jiraan laakiin sababta loo furay waxay tahay inaan isku wada xirnaan rabnaa marka okay inaan isku wada xirnaan rabnaa hadda aw chapter 1 keena aaway waa kana chapter 1 keena chapter 1 keena waa inaan u geeyna wax loo yaqaan maxay chapter 2 geena marka waan baxaynaa hadda chapter 1 fiiri hoos markay aan tagno waxa noogu hooseeya ninkii loo yaqiinay conceptual framework aan noogu hooseeyo soo maaha hadda marka reference tagno oo bibliography tagno sida reference loo sameeyo waa kaasa ardayda inta badan way isu weydiiyaan reference ayaa tagaysa bibliography ayaa tagaysa kadib reference ayaa ku siinaysa hadda waa kana chapter 1 oo kale reference yara noogu jiro
reference aad u badan noogu jiro waa ka naqanaysaa marka waxaa leedahay marka chapterkaaga labaada kan ku xiraysaa marka si ugu xiraydaa weeyaan taas idin ma barayo qof walba uu yaqaanaa kaliya uu chapterkana soo wada qaadaysaa control C ay leedahay waa soo baxaysaa halkan ay imaanaysaa waxaa leedahay control V markaad tiraahdo kadib waa ka sikanaysaa bid cusub aad tegaysaa chapter 3gaaga la rabaa inaad meeshaas ku rido haddana laakiin intaad ku ridin kahor waa inaad iska soo socdaa chapterkan inuu meel fiican yaalo waa kaa ujeedaa ma leeyahay inuu hadda isku qasan yahay waa soo baxaysaa waxaa leedahay control E aa leedahay dhexdaa iskugu geynaysaa hada bilahi tawfiiq hoosaa u soconaysaa iska eegaysaa ciwaanadiisi asigoo isla wada socdaan hadda marka chapter 3 aan soo qaadanaynaa chapter 3 aaway waa kana chapter 3 asna noo wada koobiyey noo wada control C noo dheh kadib noo qaado halkaan noo geey chapter 1 kana agtiisa noo geey control V dheh manoo saxan asigana noo soo fiiri waa ka qalad yaraa galay dhexda noo geey control C mar walba ha ilaabin control S na ha ilaabin oo ah inaa waxaaga isla markaas ay fikrayso waayo shil yar baa geli kartaa oo ah adigoo 3 saac 2 maalmood soo dadaalaya ama hal maalin soo dadaalaya waxa laga yaabaa in waqti yar aad hurdo ama aad aado meel loo yaqaan suuliga aad aado ama computerka dab la'aan oo kaaga damo kadibna aad chapter 4 kana soo qaadana yani kadibna oo kugu dhaco wax loo yaqaan computerka haduu ka damo maxay xogtaadii oo dhanna maxay control V noo dheh okay kana soo saxo waliba chapter 4 ka markaa ku soo daraysid ayaa inta badan qasqas iyo yar yimaada wajida chapter 4 ka waa noo saxan yahay qaybtiisa kore qaybahan kale in isla soo socdaan rajaynayna okay hada bila tawfiiq hadda marka waxaan ku soo xiriinaa nin loo yaqaano chapter 5 keena ku soo xiriinaa chapter 5 keena waa kana control A dheh control C dheh soo qaad halkaan noo keen kadib waxaad tiraa control V asigana inuu noo saxan in kale koran ka soo eegayna wajida marka shantaadii chapter hal meel iskugu keentay marka hal meel iskugu keentay kadib ka wada sikanaysaa page cusub aad tegaysaa reference-gaaga hadda sameyn kartaa marka waxaa leedahay reference aad tegaysaa kadib waxaa leedahay bibliography aad dhehaysaa reference aad leedahay wajida amarayna marka asigaa qaata marka reference wax walbo reference meesha kugu jiray asigaa qaata marka one page oo reference ayaa isticmaashay okay inta markaa joogto marka waxaa leedahay 5.4 aa leedahay haddaad doontana waa iska dhaafi kartaa elephanta amaraynaya okay colorkiisana waxaa ka dhigtaa madow ka dhig okay hadda marka buuggeenu dhan wuu qurux badan yahay hadda marka bisharda marka su'aalan kuugu darayaa su-aashaan kuugu daraya waxay tahay marka chapter 5kaagii oo dhan waa kuwaana conclusion-kaaga waa kuwa kana laakiin major function conclusion-kaaga way isleeyihiin inay kala wen yihiin amoodaa kan hadda numberkiis meeqa waayo waa kaa mujeedaa waa baxaysaa fartoo dhan arial ay kaa wada noqota hal mar control A dheh time roman dheh farta markaa 12 ka dhigo markaa ka dhigata kadibna justify ka wada dhigo markaa justify ka wada dhigatana 1.5 way wada yihiin iska daa kadib hal mar waxaan baxaynaa kor ay wada tegaynaa anagoo halkan ka soo bilaabayna marka oo wada eegayna marka waxaa leenahay qaybtan control E halkaa noo gee kadib waxaa leedahay hoos u soco yaa qaldamay wax naga qaldamay jabtarkeena ma ujeedno falaaraha net iska yarata toosi qurxinta yani waxa sayti kulay idin tilmaamayay fahmayda hadda waqti badan naga cunaya kaliya laakiin aad iska qurxiso adaa laga rabaa chapter 2geena waxaa leenahay labadan net koobiyeeyo dhaxda noo gee control S taaba hadana hoos u soco wax yar marka u yara socoto chapter 3gaaga tageysaa chapter 3gaaga control E dheh
control s kadib haddana dheh waa fahantaa umaleynaya intaa markaa hoos u socotid mujeedaa hadeertaan validity-ga meel yar uu kale soo maha inta iska wada keen isla markaas oo kale kaasaas oo kale u saxanaysaa hadduu ka yara qaldamo limitationka oo kale maadaama intiisa badan inta isa wada jiraan asna inta iska wada keen marka jabtarkan hoos u sikaday waa fahantaa umaleynaya labadan isku koobiyey control e dheh control s dheh hoos u yara soco hoos u yara soco hoos u yara soco way noo saxan yihiin intooda kale qaar baa soo wada sikaday hadda kan waa saxan yahay laakiin pageka ka hooseeyo wax badan buu sikaday koraa keenaysaa control s dheh hal xabo haddaad ka bedeshoba waxaa leedahay ii sheeg inaan control s aa leedahay control s si xogtaada kuugu save garoodo waa la fahantaa rajeynayaa control s chapter 5na sidoo kaleesna waa sikayey kadib dhexda geey asalaamu calaykum jabtarkeeni intaas ayuu noogu egyahay inay ila wada fahanteen waa rajeynayaa sidaan usoo sameynay usoo wanaajinay usoo qurxinay hadda waxaa noo dhiman keliya waxay tahay waan nambaraynaynaa weliba laakiin nambaraynta hal mar aa ka wada dhigan doonaa xiisada xigta ama videoga xiga waxaan ka samayn doonaa primary pageska hore laakiin taa pageska hore u gudbin waxaa rabaa appendixkana u gudbo hal mar iska wada dhammayno tusaale ahaan hadda kan iska xir uma baahnin kanna uma baahnin waa chapter 4 keena asigana buugga hagaa cilmi baaraha keliya u baahannahay buugga hagaa cilmi baarana waxaa ugu baahanahay chapter 5 ka markaan nageyso 67 nagee 67 markaan nageysid kadibna waxaa rabnaa recommendationka reference waa sheegnay reference markaan qorno kadib waxaana la appendixka maxaa la yiraahdaa appendixka waxaa la yiraahdaa marka waa soo xusida ama soo bandhigida waxay cilmi baaruhu dhibaatooyinka waxaan uu ka soo maray yacni inuu soo bandhigo ama cilmi baaruhu uu ka hadlo waxyaabaha yacni ii sheeg waxaa ka mid ah tusaale ahaan oo kale sida questionnaire-ka daraasadoo kale inaad ka hadashid sidoo kale inaad ka hadashid qarashaadkii kaaga baxay waqtiyadii kala duwanaa aad daraasadan soo samaysay intaas inaad kusoo lafagurtaa lagaa doonaya okay marka see loogu lafagurayaa marka maxay appendixka marka waxaa leenahay kow horta erey ahaanta noo qaad markaa noo qaada kadib boog waxaan geysaa 100 si aan u aragno qaabku u yaala 26 referencega marka la sheegay appendixka waa kana waa kuwana mujida appendix A leedahay questionnaire-kaaga soo bandhigaysaa kadibna waxaa kusoo bandhigaysaa horta questionnaire-ka marka hore aan soo bandhignaba waan bixaynaa halkaana tegaynaa waa bixaynaa halkaana tegaynaa questionnaire-keena soo furanaynaa questionnaire-keena waa kana soo kan mahayn yes sidaas kaga hubaysa kadib waxaa lahdaa su-aalahaaga tegaysaa su-aalahina waxaa employee satisfaction-ka waa kuwana promotion-ka waa kana job security waa kana asii dhana waxaa leedahay control A aa leedahay control C aa leedahay waad qaadanaysaa waxaa geysanaysaa chapter 1-kaaga ilan chapter 1 waxina iskugu geysay page cusub aad toos u tegaysaa page cusub markaad tagto yani appendix aa qoranaysaa appendix-kaaga qaabkaasaa ka dhiganaysaa qaabkaas markaa ka dhigata kadib waxaa leedahay appendix A aa leedahay marka laba dhibcood noo siisanaysaa oo ka yargejeysanaysaa hoosa marka waxaa ku save garaysanaysaa questionnaire-kaaga okay appendix A mujeedaa marka qaybtan kale naga go appendix A waxaa weeyaan dhahnay questionnaire weeyaan waa soo maaha control C noo dheh okay okay appendix B maxaa noo noqonaya marka questionnaire-ka markaasna iska soo sax inta badan waxyara qaldamaya kaliya oo wixii isleed qurqurux badan iskugu gee waa ka okay kadib waxaan leenahay haddana appendix-ka labaad qarashaadka ugu hadlaynaa inta imaanaynaa
علينا control v لنا هاي لكن appendix وإنا كدقنا b إنا كدقنا نقول دونية b مركا كدنا كدب وعلينا هاي appendix كم وحاكو حيقو وكان موجودة يعني تيم فريم وورك ليس تيم فريم وورك بلانك محلي هذا مركب تيم فريم وورك بلانك محلي هذا وقيب تاني تا ugu hadli doonto asna waxaan ku sharxi doonaa xaggaas bal horta aan ku soo sameeyno chapterkeena aan ku sameeyno chapterkeena markaan ku sameeyno kadib ayaan ugu hadli doonaa control c node kadib chapterkeena oge اوكي مربع كاس نو كاينه كان اسكتر اوكي كان محلي هذا وامرك تيم فريم ورك بلان كان محلي هذا ودراسه هذا قابكاد u soo martay weeyaan howlaha aad saa u soo qabanayso weeyaan tusaale ahaan oo kale fiiri تيم فريم ورك بلانka taskii hawsha qabatay iyo bilihii ay qabatay tusaale ahaan oo kale waxaaba ka soo qaado wala semesterkaaga wuxuu bilaabanayaa sanadka bilowgiisa oo kale semester 8 ama semesterka kuugu dambeeya adiga wuxuu doonaa ha noqdo 6 8 12 wuxuu doonaa ha noqdo ka soo qaad inaad sanadka bilowgiisa aad bilaabay semesterkaaga ugu dambeeya aad buug qoraysay ardayda qaar semesterka dhexdiisa buug qoro oo intaysan dhameyn jaamacadda oo semester 6 ka markay marayaan marka topic selection-ka waxaad bilowday February bilowday saan ognahay jaamacaddu waxay imtixaan gashaa January meelahaas imtixaan ka soo laabataa ama ay gashaabo February عمل ولا قصة لابته ويا هالأسبوع امتحان على قلاوة متى من توده حسه سمسك كوضم يا مركا كشغل كسوقات فبراير وحلو العوان صداره عوان كيا حلاتي ماج انت بشي ماج اللي جوجر أردن لبا هلا اسكو قبنيسي هوش كود وحويان إن عوان قريسي أو بروبوزل رايتنج كوجرتي يا adjustment وحيابه اللي وسوع علي واي جبت روان مركا قرطاس بروفيسور كوجد بسي بروفيسور وحيابه يروح وسوع علسي adjustment of the proposal لو واحد كوجرت بش ماج أبريل مركا اللي جاروي علامة سنتها هاي واحد جو قريسي data collection كا يعني ماج انت اللي وجري جبت روان إيه 2 إيه 3 وحلو يقانا بروبوزل كده مستر كيسا وقيبت وقريسي لو يقانو secondary data chapter bisha April markii la gaaray waxaad bilowday data collection ka oo chapter 4 aad bilowdo oo ah primary data collection kii markaad soo aruursatay chapter 4 kaagii ah horga gashay isla bisha April waxaa bilowday data analysis and interpretation aad bilowday markuu data collection waxaa questionnaire kinaad diyaariso howleyso waxyaabaha si tawayaan tan waxa weeyaa markii inaad hawshii bilowdo May markii la gaaray waxaad bilowday buugii inaad soo daabacid sidoo kale buugii aad tafatirtid editing test buuga ku sameysay June markii la gaarayna buugaaga wuxuu bilaabay marka ay sheeg June markii la gaarnay waxaas bilowday inaad buugii soo gudbiso oo buugii aad saxiixato professorkaaga u geyso oo ku soo saxiixo kadibna June markii la gaarayna waxaad gabagabayso waxa loo yaqaan maxay buugaaga inaad difaacato qaybtan waxa loo yaqaan marka term framework plan loo yaqaan waxa jirta marka qayb saddexaad oo laga rabo inaad soo bandhigtid ayadana oo la yiraahdo maxay costigaaga budgetkaaga asigana waa kana markaad buugaaga cilmi baaraha tagto oo kugu yaala qaybta ugu dambayso oo waxyaabaha marka appendix-kaneti waa muhiim aad doonto iska dhaafi kartaa control c d kadib waxaa imaadaa buugaaga imaaw halka markaad timaado kadibna page cusub tag page cusub markaad tagto kadibna halkan ku koobiyeyso appendix c faan soma okay ability numberkaaga marka waxa leedahay description waxa printing waxa iga baxaa leedahay kale tusaale ahaan $5 copy waxa iga baxaa leedahay $2 iyo wixii lamida ilan book inta badan marka professorka mailer markuu kugu soo celsho book lama daabaco page-ka uu kugu soo celsho kaliya la daabacdaa tusaale ahaan oo kale fiiri page-kaaga bookaaga kale waxa waa 10 page oo kale page-ka sideedaad oo kale wax yar kugu soo celiyay inta kale ay ku saxan tahay okay maktabada tag waxa dhahdaa page-ka sideedaad iyo halaan iga sax soo bixi ma fahanto marayha laakiin haddaad buug dhan soo daabacdo haddana buug dhan daabacdo sidoo kale saa ogtayna buug marka daabacayso waa page cadaan weeyaan la iskuma garaaco waayo page walbo page-ka dabadiisa dambe waa cadahay
وفهمت أمرينيا مركا حدي لعله وكوسو على بروفيسور كاغا أرضيga marka qiimadeed saas oo aqligaas oo kale sameeyay wax badan oo bixin laba door waayo hal bug marka page daabacad oo kale intaas oo kale weeyaan transportation ka ardaygan oo kale wuxuu $0 ay ugu baxdo yiri maxay yeelay ani inta badan waxa laga yaabaa professorada qaarkood inay ku dhahan kaliya noo soo dir inaad jaamacadda imaanin han isoo aadin qarash soo gelin isoo dir inuu caajis loo yahay laga yaabaa inuu ku naxariisanayo waa laga yaabaa total dollar ninkan buuga inuu qoro oo dhan $7 ugu baxday amountiga sharci marka waxa leedahay amountiga iga baxay printing service-ka iyo copyright-ka transaction iga baxabo aad u hooseeyay taasna waxa sababay lockdown-ka oo coronavirus-ka ilaa ardayga marka buugan qoray tusaale ahaan oo kale yani $20 yani waxa ugu baxday $7 $7 ugu baxda marka coronavirus-ka sababa Soomaha okay waxaan iska tirtir hadda coronavirus ma jirmay iska tirtir waxa tiraahdaa printing waxa iga baxay lacag gaarayso $7 amount copy waxyaabaha sidii in dib loo daabacan waxa iga baxday lacag $5 baabuurka superfice-gina aadan waxa iga baxday lacag $15 ilaa bajaaja bilaawat ma ogtahay okay isku dar lacagtaanayta waxay noqonaysaa marka $27 buugaaga $27 kaaga baxday hada wabillahi tawfiiq waxaan wax ka dambeeyo la qori doono ma jira marka adiga ku cisho hada billahi yani gadaan u laabto ma soo sharxi doono inta waxaan ugu leeyahay marka numbering page-ka laakiin inaan buuga numberayno suurtagal ma noqonayso waxa rabaa xog yar inaan meeshan ku bixiyo idana ah hada page-keena waa 31 anaga marka halkan ka fiiriso waa 31 waa faanta umaleeyaha 31 gaasi page qas suurtagal ma marka 31 page ina tirado thesis-kayga ama proposal-kayga waa 31 page waxa qasaba inuu 45 ka bato 65 oo san ka badan waa faanta umaleeyaha ila 65 laakiin numbering-kan waxa xaq u leh jaamacadaada wuxuu ku yaalaa inta badan senior project-gaaga ama guideline-kaaga ku yaala guideline-kaas wuxuu ku furo haduu 20 page kan ku dhaw 20 page u geey haduu 50 page kan 50 page u geey idan jaamacadaada marka waxa jirta PDF ee ku sii doonto oo ka sixi doona farta ku soo daabici doonto idana waxiisa kale aan ku qaadan doona video kale ka soo sameyn doona laakiin internet-da wax muhiim waxay tahay page-kaaga inta badan inuu gaaro 45 إلى 65 هذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan oo dhiman kaliya waxay tahay sida booga loo difaacdana gadaalan ka sheegi doona primary page-ka iyo page-kina waa isku xiran yahay hadeertaan 10ka page horaan sameyn doona kadib numbering-ka oo kala sameyn doona kadibna waxa weeyaan insha Allah taala wixii dambe oo dhimanba waxa weeyaan tala guud iyo waxa sitii noqon doonta haduu Ilaahay karaal noqdo waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan aad noo dhiirigelinaysaan runtii WhatsApp-kan oo la soo xiriireysaan misidida quruxda baa noo soo dhigaysaan telefoonada nooga soo garaacaysaan waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad baa soo dhawaada aad ma santiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh